magaalada balad xaawe ee gobolka Gedo waxa ay martigelinaysaa xiisado siyaasadeed oo culus kuwaas oo ay kala abaabulayaan maamulka Jubbaland iyo dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo isku dhinacay iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana halkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay ciidamo tirabeela kuwaas oo ay sheegtay in lagu xaqiijinayo amniga degmada balad xaawe oo dhacda xuduud beeneedka gobolka Gedo uu la wadaago wadankaasi Kenya soo dhawaada haday tahay markaagu kugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noon la garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada wararka ka imanaya gobolka Gedo gaar ahaan magaalada balad xaawe ee gobolkaasi ayaa waxa ay ku waramayaan in xiisad culus oo u muuqan karta in gacmaha la isulo taga ay halkaas ka jirta ka gadaan waa berigii hore ee saaka oo ay magaalada ku waabariisatay bannaanbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka deegaanka oo si weyn u diidan hadal dhawaan ka soo yeeray saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Ethiopia iyo shirkii Kenya iyo Ethiopia iyo Jubbaland ay ku yeesheen deegaanka Suufta ee hoostaga magaalada Doolow ee gobolka Liibaan ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxa lagu soo waramayaa in hadda ay abaabul xoogani ka wadaan dhinacyada gudaha magaalada balad xaawe isla markaana waxa la tilmaamayaa dowladdu inay ugu horeyso isla markaana ciidamo tirabeela ay halkaas dhigtay laba diyaaradood oo kuwa militariga isla markaana sida dabaabad isla markaana sida ciidamo iyo saanad aad u tira badan inay ka degeen halkaasi waxaana hogaaminaya taliye dhafoorey oo sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaana la tilmaamayaa in uu wacad ku maray inuu qaadi doono tallaabooyin xoogan oo ay ka soo waaqsan dooneen dhinacyada dagaalka ka abaabulaya gudaha magaalada balad xaawe dhanka kale ciidamada Jubbaland waxa ay helayaan saanad iyo hub tirabeela kuwaas oo uga imanaya dhinacyada Kenya iyo Ethiopia waxaana la tilmaamayaa inay isku abaabulayaan meel ka yara baxsan gudaha magaalada balad xaawe waxa samaangal dhinacyadu inay fooda istiraan maadaama abaabul xoogan oo u muuqanaya xiisad midii ugu dambeysay inay ka jirto magaalada balad xaawe waxa la tilmaamayaa in ciidamo Kenyan ay gaaf wareegayaan qaybo ka mid ah gudaha magaalada kuwaas oo la tilmaamayo inay ka soo tallaabeen xadbeeneedka ay wadaagaan labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya waxa sidoo kale jira diyaarado ka kala socda labada dowladood ee Kenya iyo Ethiopia inay gaaf wareegayaan xira UK oo ku taala magaalada balad xaawe waxaana la tilmaamayaa isla markaana ay muujinayaan sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday diyaarado dul heehaabaya xira UK isla markaana waxa la tilmaamayaa in sheeda sare ay ka sawirayeen saldhigga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada balad xaawe ee xira UK waxay soo muuqanaysaa dandaansi meeshii ugu dambeysay oo ay sameynayaan dhinacyada Kenya iyo Ethiopia kuwaas oo si weyn u diidan tallaabooyinka dowladda dhexe ay ku doonaysa in guud ahaanba ciidamo masaariya ay ku geyso gobolkaasi Gedo taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka shaqeynayay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo galka gobolkaasi isaga hogaaminaya waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay si weyn uga gadoodeen labada dowladood ee dariska la Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya waxaase la tilmaamayaa in si toos ah ay ula shireen maamulka Jubbaland ayna u sheegeen in hub iyo saanad ciidan ay siinayaan si ay isaga difaacaan dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana loo ballan qaaday Maxamuud Sayid Aadan in gacanta looga soo celin doono magaalooyinka gacanta Jubbaland ka maqan ee gobolka Gedo ku yaala oo ay ugu horeyso magaalada balad xaawe waxaa la tilmaamayaa in dabaabad dagaal saanad ciidan oo tirabeela in ay tageen gudaha magaalada Mandheera halkaasi oo daafta dhinaca magaalada balad xaawe ay ku sugan yihiin ciidamada Jubbaland ee daraawiishta waxaana la tilmaamayaa in iyaga qudhoodu la soo kordhinayo isla markaana diyaarado sida hub iyo saanad ciidan oo ka imanaya dhinaca iyo magaalada Kismaayo ay tagayaan gudaha magaalada Mandheera waxaase tallaabadaasi xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada maamulka Jubbaland oo ay soo xigteen warbaahinta madaxa bannaan waxaa la tilmaamayaa in Jubbaland ay wado abaabulkii ugu dambeeyay kaasi oo ay ku doonaysay inay guud ahaanba ku qabsato deegaanada gacanta dowladda ku jira ee markaasi dhawaan laga faramaroojiyo oo ay ugu horeyso magaalada balad xaawe waxaase la tilmaamayaa in tallaabadaasi ballanqaad dhab ah inay ka siiyeen dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo iyagu taageero buuxa siinaya Jubbaland dowladduna waxa ay wacad ku martay in guud ahaanba tallaabooyin ay qaadi doonaan kuwaasi oo guud ahaanba u muuqanaya in markaasi ay hogaamin doonaan abaabul xoogan saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ciidamo tirabeela oo gaaraya ilaa iyo 3,000 oo askari kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan looga daabulayay gudaha gobolka Gedo gaar ahaan magaalada balad xaawe xira UK waxay la circeeraysaa guud ahaanba hadal hayn xoogan oo Jubbaland ku saabsan iyo sidoo kale diyaarada sheeda sare ka sawiraya
kuwaasi oo guud ahaanba la tilmaamayo in cabsi xoogani ay beereen waxaana la tilmaamayaa taliyaha nabad sugidda maamulka Jubbaland ay magacowday dowladda dhexe ee Soomaaliya Cabdirashiid Janan inuu qaadayo tallaabooyin hor leh kuwaasi oo uu sheegay in lagu xaqiijinayo amniga isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu yiri annagu waxaanu dagaal kula jirnaa maamul la yiraahdo Jubbaland oo uu hogaamiye Axmed Madoobe kaasi oo uu ku sheegay inuu fallaaga yahay waxa kale oo hoosta ka xariiqay inaysan jirin garab labaad iyo saddexaad oo aynan dagaal kula jirin dowladaha Kenya iyo Ethiopia waxa uu sheegay inay diris yihiin isla markaana ay ka shaqeynayaan kaliya diris wanaaga waxa uu yiri waxaanu qaadi doonaa warar aan guud ahaanba gacanta dowladda iyo nidaamka dawliga aan uga soo celinayno guud ahaanba gobolka Gedo iyo deegaanada ka maqan ayuu yiri Cabdirashiid Janan oo warbaahinta maanta la hadlay sidoo kale waxa hanjabay taliyaha nabad sugidda Doolow oo isaguna sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo ay ku xireynayaan magaalada Doolow oo uu sheegay inay cadow gacanta uga jirto waxa kale oo jira dhaqdhaqaaqyo xoogan oo siyaabooyin kala duwan u abaabulan oo garabyo kala duwan ay kala hogaaminayaan dowladda federaalka oo waxa ay sheegtay in guud ahaanba garab waliba ay si gooni uga adkaan doonto waxa ay sheegaysaa dowladdu in dagaalkan garabyo kala duwan uu leeyahay laakiin ujeedka ugu muhiimsan uu yahay in Jubbaland ay ka saaraan guud ahaan deegaanada ay ka arbiyaan maamulka Axmed Madoobe iyo sidoo kale Jubbaland isaga uu hogaamiyo ee ka dhisan magaalada Kismaayo waxay doonaysaa dowladdu mar kale inay abaabusho dagaal kale oo ay ku wajahayso magaalooyin kale oo markaasi Jubbaland gacanta uga jira lama sooga dagaalka iyo burbursiga xoogan ee ka jira gobolka iyo halka uu saldhigan doono